بسم الله. وأنت وماير كرنتي شيء واحد ما أنت سكوني مين أنت يدنا مسؤول مسؤولين تي هير قرن وزير يحل بانو أدي يعني ينكو برلمانك يدعين كذا وحنا سكوني محاوي عرين أنو لك كلنا قبل هان ورنتي عقبات كوا كار هذا شديد تاسي والسامي يلان كرتا مارته دين عنا بتقولي ذا ودويني إلا يحلي إلا يمانت aynu soo wacayaan ama goobihii markay aanu tagnay ay nagu soo maaragtay ay dareemeen maanta dareen shacab ah weeyaan waxa qasab naga dhigay inaanu dadkeena la hadlo niraano isdajiya oo waynu idin maqan oo idin shaqeynaa komishinkii inaanu la hadlo niraano de waxaynu wadno waa shaqadana galdaloolooyin ma weydo waliba markay bilowga tahayna waxa loo baahan yahay meel lagu ciyaaro oo wixii qaladaad ay yimaado lagu saxo iyadoo aanay isdaliilayn oo wixii shaqo nagu cusub ay wadayeen waxaan u baahanahay inaynu ka fikirno sidoo maayirku sheegay qofka bilaadanka ee ama miyi ka yimi ama 2 kiiloomitir 3 kiiloomitir soo lugeeyay cadceedan aad arkayso xilligan say tahay markuu goob yimaado goobtii wax ka waayo dabeedna laba goob kale loo tilmaamo tii kalena magacii laga bedelay ama aanu ka arkiisa boolin tasaddexaad qofka soo gaaraya dawaad tahay qofka bilaadanka energy-ga ku jira uu iska kooban yahay dabeedna niyad jab ka timi meelaha qaar dadkii dib u cadhaysan iminka gooban tago kale niman dhalinyaro way la dagaalami gaadheen ba oo mas'uuliyadii aniga saarayaan leeyahay gobolkii madax ka anana oo eedayn karmayno komishinka karmayno komishinka dib wado dad ku dirmayno dadweynaha waxaan leenahay waa la idin shaqeynaya komishinka waxaan leenahay waxa weey maadaama gobolkan uu yahay iyo saaxil iyo goobo 12 goob sanaag yihiin kuwii lagu bilaabay waxaan u maleynayaa in dibkana wada haysato inta iyada oo ay maadaama pilot project kaasi inuu waxyaabo qalad ay yimaadeen hadhow eedda ka timaada ee saameyn ku yeelan doonto doorashooyinka dambe waxa weeye marka Hargeysa iyo Burco experience-kii boorama laga helay kaararka ay ku helaan ku qaataan oo daqiiqad ka qasaar weydo tan dambe waynu garanaynaa ninka waxa soo socdaan garana waxa jooga ma garto saameyn nabadgelyo yeelan doonta saameyn doorasho dambe yeelan doonta saameyn siyaasi weyn oo doorashada dadku inay diidaan bay ma kartaa marka waxaan leenahay aynu isu nimaadno yeena isdifaacin dhinacabe labada maalmood ee naga qasaaray waa in la helaa oo dib loo helaa isla markaa waxaan soo jeedinayaa oo kale in goobihii saddexda loo kala jabiyay sidoo maayir sheegay 14 goobood min degmadu ahayd markii hore iminkana waa dhowr iyo soddon goobtii waa saddex noqotay meena waa triple marka taa waxaan u baahanahay in goobihii goobtooda lagu celiyo iskuuladan soo booqan waxay leeyihiin dadkii joogay maxaa kuwan albaabadan kaleba way furayeen wax leeyihiin waa kuwan la iska xidhay arday kuma jirtee ma la dhigo waxaan leenahay komishiga waxa weeye la isdifaacin in hawsha fududeyno 2 cisho dheeraadana lagu daro goobihii banaanaan iskuuladana goob walba hal say ahayd lagu soo celiyo say ahayd dadka bilaadanka maskaxdu inta wax laga dhaadhicinayo way culus tahay wacyigelin fiicanna ma arkayno oo socota ma gaari mikrofon orday muxuu yiri leeyahay oo mikrofonkiisa samaacadu aan shaqeynayno aka bixinayso dadku waxba uma sheegi karayo dadka imanka maanta inuu sheegayna waxaan u baahanahay in goobihiina sidoodii lagu celiyo dadkiina isdajiyaan kaararkeena dib loo qaato fursadii gobolkan aan la qasaarinay annagu minute lacag buu nagu yahay minute cod buu nagu yahay minute nabadgelyadu wax ku yahay minute siyaasadda iyo doorashada dambu wax ku yahay minute ka qasaara wuxuu ka qasaaray gobolkan oo dhan buu ka qasaaray qaranka oo dhan uu ka qasaari doonaa haddana wax laga qaban sida awgeed anigu barasaaban gudoomiye gobolka waxaan arkayaa in culays nabadgelyo ay nagu soo kordhisay arrintu sida daraadeed waxaan leeyahay iyadoo inaan isriixeen is eedeyneen isdifaacin arrinta dib ha loogu noqdo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.